بسم الله الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أخواني السلام عليكم ورحمة الله. داود يال وحان إن شاء الله تعالى كسو هذا اللي بهيد موضوع كصابسا إن أفرتن كيسا نكدب جمهورية جيبوتي سيدو اكتهي موضوع يسي لباد ولكن كبالاران بانقلينا iyadoo aan ku socon doono laba xalaqo oo dambe insha Allah ta'ala laakiin maanta xalaqadan waxay ku saabsanaanaysaa mowduuca ka yar culus oo ah in arintii ka dhacday in maaragtay Qatar iyo Djibouti iyo Soomaaliya iyo waxaan taxliilnaa mawaaqifta ay dawladuhu istaageen in dhamaantood insha Allah ta'ala waxaan ognahay walaalayaal siyaasadda culimadu waxay dhahdaan markaan siyaasadda culimada leenahay waxaan culimada siyaasaddu haday yihiin culimada siyaasadda islaamka baadha iyo culimada siyaasadda caadiga ah baadhaba labaduba waxay leeyihiin siyaasaddu waxa laga eegaa saddex indhood baa lagu eegaa siyaasadda koow waa marka hore waxaa la eegaa wax loo yaqaano almuwaazana waxaa la miisaamaa maxaa interest ku jira mowqifkaad qaadanaysid iyo maxaa khasaare ku jira baabka magaciisa waxaa loo yaqaanaa muwaazana waa wax la miisaamo amba mufakiriinta qaarkood waxay isticmaalaan kelmad kale oo carabiya oo Soomaaliyana muqaayasa waa la qiyaasaa waxba la qiyaasaa sida marka guri la dhisay loo qiyaaso ma siyaasadda loo qiyaasaa siyaasaddu maaha hawo maaha majlis la iska fadhiyo maaha maqaaxi la fadhiyo oo laga soo tooso uno qaraarka saa loo qaato oo hebel oo saa yeel dhacdo sida annaka ay ka tahay qaaradda Afrika ma aha laakiin waxa weeyaan وموازنة وحلا ميزاميو وحلا ميزاميا ضن محا كجرا محا خسارة كجرا محا ونا كجرا محا حمان كجرا أما وحلا ميزاميا هذه الضن أي جرتو هل كان نو ضن بدن لبضن وحلا ميزاميا هل كيبا إنه حمان بدن إيا الميزاميا وحكا لأو لأيغا مقايسة ولا قياسة وحلا قياسة مبادئ ده دادكو وحيليه المبادئ أو مبادئ هذا هي فكرك aad rumaysan tahay iyo dhaqanka aad rumaysan tahay iyo dadnimada aad rumaysan tahay iyo masaalixdaada sideed u wada wadi haday isku hor yimaadeen keebad raaci maanta ma mabda'ad raaci mise maslaxadaad raaci dadku waxay raacaan inta badan maslaxada laakiin dad fara badan waxay raacaan mabaadi'da marka qaarkood mabaadi'da ku qasbaysa inaad masaalixdaada ka tanaasushid oo mabda'a raacid sida aan arki doono insha Allah ta'ala marka mowduuca waxa la dhahdaa waa waxa ugu horeeya ee lagu eego marka qofku qaraar uu qaadanayo political المقايسة والمقارنة أبا المقارنة وجدتها comparison إلا سو comparison وجدتها أو الله يسبربر دقو أريد اللبات يلقو قياسا مركا لأيغا يسياسة وحال لأيغا مآلات القرار السياسي مركا قادة decision political محا كدن بيا لأيغا ما أنت ماها بري محوكاني سهن دبا محوكاني قرنيغا صوص عدا حتى محوكاني يا لأيغا داد مزاجي ماها قفك سياسي miisaajkiisa kuma shaqeeyo sida siyaasadda bariga dhexe oo kale iska soo toos oo samee cilaaqaadka u guud dawladahan waxaas maaha miisaaj maaha waxa lagu sameeyaa diraasaad baa lagu sameeyaa waxa loo dhiibaa aqoonyahankaas oo badan kuwa cilmiga yaqaanay dhaqaalaha kuwa yaqaanay cilmiga siyaasadda kuwa yaqaanay cilmiga bulshada kuwa yaqaanay cilmiga xadaaradda kuwa yaqaanay cilmiga isbeddelka iyo loo dhiibaa waxa la yiraahdaa arintan soo kariya madbaq baa la sameeyaa madbaq siyaasadeed baa la sameeyaa meeshaas lagu soo kariyaa marka buu ninka decision ka qaadanaya oo qaataa decisionkiisa marka taasina waa maalaat siyaasaddu halkay ku dhamaanaysaa baa la eega ila ayna tadhabu al-umur arrimuhu halkay tagayaan baa la eega marka qaraar la qaadanayo arinta saddexaad ee muhiimka ah marka qaraar siyaasiya la qaadanayo waxa la eegaa qaraarkan siyaasiga ah inteebuu waafaqsan yahay qaanuunka caalamiga ah ileen waxaa tahay dawlad ma tihid ku nool cirka waxaa tahay dawlad ku nool dhulka dushiisa waxaa hareerahaaga jooga wax dhahdo dawlada jaara waxaa hareerahaaga jooga dawlado aad qaarad qura degan tihiin caalam baad ka mid tahay dhahdo islaam carab afrikaan igaad wax badan baad ku jirtaa kadibna waxaad ku jirtaa community internationalkaad ka mid tahay waxaasoo dhan waxa xukuma قانون لا يدعى مجلس قانون كعالمي أما قانون كدولي إلالية حدود جود حدود جارك اللي بده ولدود أم بقوح الدولة ده أم بعالم كورة كدحية موافق سيء هي قرار كاغو مش موافق سنة إيه إسقى هدنا لا ضل رجع صدق 11 شيء بالله بعدا
marka uu qofka bini aadamkii doonayo inuu qaraar qaato su'aal baan u imanaa iminka hadda walaalayaal horta su'aashaas intaan u iman waxaan jeclahay inaan laba nin oo reer Jabuuti ah oo wanaagsan oo arinta Cali Sabiix ka dhacday biyo la'aanta aadka u xoog badan leh haraadka ummadda haysta gobolka dhan magaalada caasimadda u ah ay Cali Sabiix la dhaahdo oo magaalo ummadeenu in fara badan oo ka tirsan ay ka soo jeedaan ay tahay magaaladaas waxa ka dhacay haraad aan xad lahayn foolxumadiisana waad aragteen taswiiraha imikana waad arki karaysiin meesha caynka ay baash u taalo qof ka hadlay ma jiro gaar ahaan dawladdu kama cudur daaran dadka inay haraad hayaan oo ay biyo la'aan haysato wasiiradii arrimaha ay quseynayeen kamay hadal baarlamaankii magaalada aan ka soo baxnay loo xaday bariga Cali Sabiix waa la ogaa inaan boqolkiiba maxaan ku dhahdaa 80 iyo 100 ay ku badisay laakiin haddana kuwii loo xaday kameen hadal marka laba nin oo siyaasiyiin ah reer Jabuuti oo arintaas si xoog uga hadashay yaan jeclahay inaan xaggan ka tahniyadeeyo ninka hore waa dibiteega Ducaale oo ah nin maartay siyaasiya oo wanaagsan oo wadaniya oo bisil oo si qurux badan arintaas uga hadlay ay arimo kale oo fara badan waxaan leeyahay waa koofiyadan madaxa kaaga soo qaadina waad amaanan tahay ilaaha ku garab gala subxaanahu waa gobolka ka soo jeeday waana damiirkii bini aadanimada ay kugu jira waxaana tahay nin ay shicibka reer Jabuuti ay doorteen oo codkooda ku helay xaq ku helay oonan loo xadin baa tahay marka ummadda baad matalaysay arinta ninka labaad waxa weeyaan waa hogaamiyaha xisbiga raad Cabdiraxmaan Tiigis isaguna si raganimo ah oo qurux badan iyo arinta uga hadlay isaguna shaqoogan u sala qaadayna waxa leenahay siyaasaddu waa sidaas weeyaan raganimaduna waa sida kalsoonida naftaada ku kalsoon tahayna waa sida weeyaan labadii naas oo laba xisbi oo iska soo horjeeda ku kala jira marxaladan oo ku kala duwan visionka iyo aragtida ku kala duwan laakiin mowqif waxa sajisheen aad u qurux badan oo wali aanan ka maqal siyaasiyiintii kale ee dalka joogtay inay ka hadleen marka haraadka foosha xun leh ee reer Cali Sabiix haysta wuxuu ku tusayaa fashalka ay fashilantay siyaasadii la lahaa laba usbuuc ka hor biyihii baa soo gaadhay oo biyihii baa maaragtay dhulka dul socda alxamdulilah waan u soo sabirnay waa ka madaxweynuhu wuxuu noo qabtay lahaa waxba kama jiraan waa idinka arkaya biyo la'aan iyo haraad waa isfashilis weeyaan waxay la mid tahay uun maaragtay tareenkii la furay ee aan dhaqaaqin waxay la mid tahay uun boorkii maalintii dhaweyta la furay ee aan dhaqaaqin kaniinta joore iminka la furaya isaguna saas uu noqon doonaa wax dhaqaaqaya ma jiro waa dhagax xadhig oo dhaaf sidoo Sheekh Giiriri Ilaahay xafiday subhanahu wa ta'ala 5 sano ka hor dhagaxdii la dhigayay yaan ku turuturoonina waan ognahay dawladda Shiinuhuna inay xataa ka laabatay aynan dhisayn maaragtay wixii la oranayay maxaa la dhahdaa labadii madaar ee la sheegay waxaas oo dhan wuxuu ku tusayaa fashal oo weyn oo lagu dhex jiro hadaba walaalayaal inta markaan ka imaado waxaan u imanayaa mowduuca ah cilaaqada aan la lahayn in wadanka Qatar iyo Kuwait iyo Khaliijka iyo sida ay xukuumadda Djibouti ula dhaqantay iyo xukuumadda Soomaaliya labada siyaasadood biseelka u kala dhaxeeya iyaan nitusaya horta marka hore waxaad ogtihiin in Soomaaliya lacag aad u fara badan loo bandhigay oo wafdiyaal waaweyn oo Khaliijka socdana ay tageen laakiin mowqif ay ka qaateen sidan kale taa waxay dhahaan marka koobaad horta annagu waan baahannahay wariba baahida aan baahannahay waa baahi culus waa baahi ay dawladnimadeedii duntay maca dalika waxaan qarar qaadanay inaan lacag qaadan oo walaalnimada ilaalino mowqifka waxa amaanay aqoonyahanka adduunka jooga oo dhan iyo amaanay aqoonyahanka Soomaaliyeed oo dhan ba amaanay bal waxaan aad ugu farxay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya oo mowqifka iska taagay nafsi mowqif sida Sheekh Shariif oo soo saaray bayaan aad u qurux badan oo 7 bundi leh oo ay kamid tahay inuu ku garab joogo dawladda mowqifka dhexdhexaadnimo ay qadatay oo ah Qatar iyo Kuwait iyo Sacuudiguba inay yihiin saddex wadan oo walaal ah oo Carab ah oo Muslim ah oo in mida inoo wada jira inay yihiin oo inaan kala raacno aynan suubanayn aynan wanaagsanayn wax tarkana hadii la yiraahdana laguba kala horeeyaba taas bay ahayd maaragtay ta ay qaadatay dawladda Soomaaliya oo u beerisay maaragtay wixii ay miisaankii dawliga ee adduunka ku lahaayeen u beerisay ku tustayna qaraarka dawladda Soomaaliya inay ku jirto gacanta Soomaaliya ayna ku jirin gacan dibadeed wadanka Djibouti waxa ka dhacday in maaragtay wafdi aan loo soo dirin laakiin telefoon loo soo diray
telefonkii ay ku keentay inay safiirkii 10 saacadood kaga soo bax wadanka la dhahdo oo hoos loo dhigo diblomaasiyadii Djibouti iyo Qatar u dhaxaysay arinta si cilmiya looma diraasin maxaa yeelay arintaas waxa ay leedahay saddex arimood oo halis ah oo siyaasiya kow waxay leedahay dawladda Qatar dhinaca ciidanka Ethiopia ciidanka Eritrea ciidanka Djibouti oo isku horjooga xuduuda waxay keentay ciidanka la dhex fadhiya iyadaana noqotay dawladda inay heshiisiisa ahayd arintaasi maxaa ka dhici doona la isma weydiin oo arinta koobaad ee khaladka la galay arinta labaad ee aan la isweydiin waxa weeye wadanka Qatar wuxuu leeyahay cilaaqaad caalamiya oo dawli ah wuxuu leeyahay dadka naajixa ku ah waxa loo yaqaano dagaalada in la dejiyo in isaga la soo weeraro maaha wadanada isweerarayo dhan buu ka qayb galaa inuu dejiyo Lebanon buu soo dejiyay Afghanistan buu soo dejiyay Soomaaliya imika galaya shabaab iyo maaragtay Soomaaliya Djibouti wuxuu dhex galay Eritrea Ethiopia Eritrea uu dhex galay wuxuu kala dhex galay maxaan ku dhahdaa Pakistan iyo Hindiya wuxuu kala dhex galay wadanada ku yaala America maaragtay koonfurta Mareykanka ku yaala qaaradda America waxaas oo dhan buu galay waa dawlad indha dheer ku haysata dejinta siyaasadka waxaana lagu kalsoonaa in aynan dawladda Sacuudiga iyo dawladda Imaaraadka iyo kuwa raacay oo dhan inaynan ku guuleysanin talaabada ay qaadeen xataa dawlado waaweyn ha ka dambeeyaan maxaa yeelay waxay leedahay saaxiibo waaweyn oo dawlado ah oo arinta fashilin doona marka arinta lama fiirsan arinta saddexaad ay dawladda Djibouti ayna ka fiirsan waxa weeyaan inay dawladda Qatar ay noqotay dawlad leh quwwa naacima waxa loo yaqaano quwadaha yar ee dadka taasiiriya jasiiraha noqoto amba gargaarka ay bixinaysa ha noqoto saaxiibada caalamka ay ku leedahay ha noqoto waa dawlad shucuubta la saaxiiba maxaa yeelay waxa israacisay waxa loo yaqaan isbedel doonka iyo xurriyadda iyo dimuqraadiyadda iyo cadaaladda shucuubta adduunka oo dhan baa la jirta marka dawladda Djibouti waxaas oo dhan iyadoo aan fiirin iyo cilaaqadii u goysay arinta maanta maxay keentay durba waxay keentay inay dawladdii Qatari kala baxdo wadankeena ciidamadii u fadhiyay arintaasi kadib maxaa ka dhashay dawladdii Eritrea inay ku soo xuduudii ku soo durugto oo ay imato xuduudii dhulkeenu meeshii aan lahayn ee wali aan loo kala saarin inay yimaadaan bal inay ka soo durkaan baa suurtagala arintaasi waxay keentay in annakoo ciidankeena intii ugu culusayd ee ugu ciidanka maarta ugu xooga badnayd ee faar loo yaqaanay ay fadhiyaan wadanka Soomaaliya oo nabadda ay maarta u tageen in ay halkaasi keento in ciidamo yar anuguna ciidanka aan leenahay in ciidamadii laga saaro caasimada police iyo military iyo gendarme la qaado oo la geeyo gobolkaas aan isku haysano Eritrea in mashaakil dhaqaale oo aan qaadi karin ay nagu soo biiraan mashaakil siyaasadeed oo aan qaadi karin nagu soo biiraan arinta ma eegin arin kale jirto oo maanta Djibouti adduunka u baahan maaha in adigu u baahan tahay wuxuu oran kariyay dawladdu waxay oran karaysay wadanka Imaaraadka iyo Sacuudiga anuu ma goynaya Qatar waxba annaka uma baahni maanta Sacuudiga iyo Imaaraadka iyaka inoo baahan iyaka inaga dhulka nasiya maanta meel aan ciidan fadhiisano iyaka ku jira dagaal international iyaka ku jira dagaal iqliimi oo maarata gobolka ah iyaka ayaa doonayo iska takhalusaya carabtu marka adiga maaha kii u baahnaa ee waxa hayn iyaka ku baahnaa sida uu yiri Sheekh Shariif carab ninka daba nashleeya wax ma siiyaan ee ninkii isku soo taagay wax u taraan saadaraadad ba ogtahay maanta wafdiyaasha sida ay ugu imanayaan magaalada caasimada Muqdisho ee loogu bartamayo talaabada ay xukuumadda Soomaaliya ay qaaday adiguna marka ugu horeysa telefoon lagu soo diraba waxa tiri hay maxaa yeelay nin tukaan fadhiyo carabo dilaala kolba kiida wax badan siiyo ka qaadanaya macna kale uu leeyahay ma jirto marka khaladada inta leeg ayaa ka dhacday meeshaasi maanta waxa la leeyahay dagaalkii Qatar lagu hayay marka lagu eego cilmiga political science-ka waxa ku guuleysatay Qatar maxaa yeelay waxa fashiliyay Jarmalkii waxa fashiliyay Shiinihii waxa fashiliyay Ruushkii waxa fashiliyay Faransiiskii waxa fashiliyay Belgiigii waxa fashiliyay dawladii Scandinavian waxa fashiliyay Afrika gobolka aan ka tirsanay anagu Djibouti aqbitay Soomaaliya way diiday Ethiopia dhadhaxad bay noqotay Suudaan dhadhaxad bay noqotay Kenya dhadhaxad bay ka noqotay marka waxa weeyaan حتى كونفورت السودان أريتها dhadhaxad bay ka noqotay wadanka quraata ee raacay Djibouti bay noqotay marka حتى iigaadkii yaa ka dhaxbaxnay waxaan kaloon ka dhaxbaxnay Afrika oo dhan Afrika dhowr wadan baa u yeeray oo mowqifkeena qaatay intii kale oo dhan way diideen wadanadii carabta oo dhan waxaan Masar ahayn iyo maartay Khaftar ma Liibi ma xukumo waa nin weeyaan iyo maartay Yemen ninka xukumo meesha fadhiyo wadanka aanan u fadhinooda Sacuudigu mishaar siiyo mooyaan wax kale oo qarar ka qaatay ma jiro maqribkii oo dhan Mauritania marka laga reebo way diideen Maroc Algeria Tunisia wadanadii culus oo dhan way diideen wadanadii kale carabtaha
maaragtay xataa khaliijka ku yaallay kuwait oo dowlad dimuqraadi culus way diiday saldanatu cumaan way diiday waxaad ogtihiin isbedel baa dhacay markaa turkiga oo ciidan keenay raashinkii la soo gaadhay iiraan baa keentay raashinkii isbedel siyaasadeed baa mandiqadii ka dhacday marka isbedelkaas siyaasadeed maxaawirtaas diraysa annagu ka mid maahayn laakiin waxaan dowlad dhaxaad ku faantaan ahayn wixii oo dhan qaladadaasaa dhacay marka qaladaas waxay u baahan yihin ikhwaani fillah in ay dowladda Djibouti hadday gudaha ku khaldamaysana waxaa ka sii daray inay dibaddii ku khaldamayso waxa weeyaan cadow badan bay wadankeena u samaynaysaa waxay u soo jiidanaysaa indho fara badan waxaad ogtihiin meeshan la yidhaahdo mujamaca la yidhaahdo ee ku faanto dowladda Djibouti ee kuwait baa dhisay la yidhaahdo xaqiiqada inay sheegayaa anigu waan ogahay kuwait waxaa ka dhisay jamciyadda dhista kuwait ku taala laakiin dadka dhisay waa reer qatar meeshaas u qurux badan ee dhakhtar kale ee waxa leh dumar reer qatar ayaa dhisay dumar la yaqaano oo magacadoodana ay soo dhigi doono maalinta dambe magacadooda waa dumar la yaqaano oo reer qatara oo tujaar ah ayaa meesha dhisay aan fadhino ee wadankeena lagu faano ee aqoonta lagu hayo kumaanka qofa markaas waxa weeyaan taabay dhistay waxa weeyaan jamciyad booyinka hoos bay qatar al khayr raado waxaad ogtihiin cilaaqaadka ay dowladdu la lahayd ee dhinaca amniga iyo siyaasadda oo heer sare iyaduna maraysay waxaas oo dhan waxa lagu dumiyay qaraar yar oo macna uu leeyahay ayna jirin karti baan u lahayn inaan Sacuudiga saaxiib lahaano qatarna la saaxiib ahaano kuwayna la saaxiib ahaano carabtana dhan la saaxiib ahaano maxaa yeelay annaka waxay inoo yihiin wax quraatay annaka shalay toole imaaraadku cilaaqada noo jartay oo ay naga joojisay inaan Dubai tagno uma baahnaan badiil kala heli karaynay dagaalkuna waxa ka mid ah waxa Dubai la cabaadaysa wax weeyaan waxa la furayaa maaragtay boor amba dikad la yiraahdo Xamed ad-Dawli oo la baratami doona Dubai ad-Dawli marka dagaal dhaqaale oo siyaasadeed wadanadii ku dhex jiraan iyaan annaka maaragtay halna aan ku lahayn geelna aan ku lahayn awrna aan ku lahayn ayaan dhex dabaalanaa wax dhibaato oo naga soo gaadha maahan wax wanaag oo naga soo gaadhay ma jiro marka waxay u baahan tahay marka siyaasadda qaranka la qaadanayo saddexdii shay aan soo sheegay kuma celinayo ramadaan kariim ramadaan mubaarak taqabbal Allah minna minkum salih al-a'mal waxay noogu xigi doona xalaqadii ahayd maaragtay aan kaga hadlaynay 7 Juun oo maalin dhow ina suga salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh